magacaygu waa abwaan xarago dadku waxay ii yaqaanaan nebi difaace kaan horay ii aqoonna maanta ha i barto waxaan diyaar u ahay inaan soo afjaro sheekadii maalmihii ugu dambeeyey ee social media qabsaday oo ahayd gabadhii guursatay wiilka oo loo gubay darteed axmed dawlo arrintii sidaa ahayd waxaan maqli jirnay aas qaran baan maqli jirnay arrintii waa la siyaasadeeyey oo waxaa loo dhigay aroos qaran arrintii noocaas ahayd gabadhii iyo wiilkii caasiga ahaa oo haddii ilaahay kuu idmahayo oo wiilkana adeerkiis loo gubay gabadhana hooyadeed iyo waalidiinteed ay u xirxiran yihiin baa la siyaasadeeyey haddii ilaahay kuu idmahayo 4 bisha 10aad 2018 waxaa la iclaamiyey in hoteelkan SYL lagu dhigi doono arooska qaran waxaana loo bixiyey gabadha iyo wiilkaas lamaanihii qarniga anuguse waxaan aaminsanahay inay tahay dhacdadii ugu xumeed ee qarniga ee soo marta abid Soomaali meel oday lagu gubay islaantii maamada ahaydna ay xiran tahay la leeyahay waa farxadii adduunka haddii ilaahay kuu idmahayo anugu wax badan kama fahmin waxaan rabaa maanta inaan soo afjaro waxaad ogtihiin Soomaaliyey qabiil dhibaatada uu noo geystay baad ogtihiin waxaad ogtihiin in guryaheennii iyo ilmaheennii iyo ilaahay haatan ay ku maqan yihiin waxaad ogtihiin 30 sano qabiil in uu nahaystay maantana ay rabaan siyaasiyiin dana gooniya leh oo waxa weeye haddii ilaahay kuu idmahayo inay isu kaaya diraan waa soo dhaweynayaa wiilku hadduu jareer yahay waa muslim waa soo dhaweynayaa waana la isguursan karaa laakiin waxaa social media maalmihii ugu dambaysay aad arkayseen in waxa weeye beesha reer jareer weyne waxay soo bandhigeen cudud dhan adigu ilaa 70 qori bay soo bandhigeen waxa weeye waa dagaal la horinaya u jeedaan abgaal waa dhaarteen waxa weeye social media dhaar ka wadaan wiilkii gabadha la dhashay South Africa uu joogo wuxuu leeyahay gabadhaydu waxa weeye siyaasiyiin ma bixin karaan waxa weeye nin baan ku xiray waa soo dhawaaqaya wuxuu leeyahay asna meyd qaran baa la samaynayaa buu leeyahay haddii ilaahay kuu idmahayo murusadana waxa weeye u daala dhacayaan inay islaantii xabsiga ka soo saaraan ayaguna waxa weeye kitaab bay ku mareen haddaba waxaan u jeednaa anigu ka abwaan xaraga ahaan waxaan u jeedaa in qabaa'ishii Soomaaliyeed mar labaad la isku hurinayo waxaan u jeedaa in dab waxa weeye laga dhaxshidayo ummadii Soomaaliyeed mar labaad waxaan u jeedaa mugdi aan ka soo baxnay in gadaalna la kugu celinayo waa la isguursan jiray laakiin ma arag guurkan sida loo buunbuuninayo guur waxa weeye haddii ilaahay kuu idmahayo sida loo buunbuuninayo ma arag waxa weeye heerkan guur la gaarsiiyey gabadhii wiilkii waxa la dajiyay hodheel $150 one night hal habeena waxa weeye 10 bisha afraad 2018 waxa la rabaa in la dhigo aroos qaran baa la rabaa in la dhigo waxay taasi waxa weeye waa isku dir waxa weeye laga shaqeeyo umad Soomaaliyeed haddaba xildhibaanada sida gaarka ah arrintaa uga shaqeeyay waxaa kow ka ah xildhibaan Cabdi Shira Jaamac Jooqle oo loo yaqaano ciyaar jecel waa nin daarooda maanta waxaan diyaar u ahay anigoo ah abwaan xarago waxaan diyaar u ahay inaan soo afjaro arrintan social media ku soo cusboonaatay oo waxa weeye la rabo qabaa'ishii Soomaaliyeed in la isku diro la rabo adeer maanta waa soo afjarahayaa mana doonayo raallina kama ahi mana soo dhaweynayo qabaa'ishii Soomaaliyeed maanta in la yiraahdo tanaan laangaab iyo tanaan laandheera oo la isku diro oo waxa weeye dadkii meydku dhax yaalay musiibadu qaran ay dhax taalay waxa weeye la leeyahay haddii ilaahay kuu idmahayo aroos qaran ha loo sameeyo waxaa loo baahnaa marka ugu horeyso in baahida la xalliyo in haddii ilaahay kuu idmahayo dadka waxa weeye dhibaatadu kala gaarta la xalliyo in ilmihii 12 ilmood uu ka tagay Axmed Dawlo jannadii Allah ugu bishaareeyo waa marxuum aad baan uga xumahay sida xun loo gubayna in ilmihii noloshoodii meel la saara ayay ahayd siyaasiyiintu dana gaaray wataan igu sawir weeye waxaa dhacday in haddii ilaahay kuu idmahayo wiilkii iyo gabadhii inta hotel lagu xaraystay la yiri aroos qaran baa loo dhigayaa
arrintu daacad ma ahan laakiin maantaan soo afjarahayaa ka abwaan xarraga ahaan maantaan soo afjaray wax allaala iyo wixii qabiil waxa weeye haddii ilaahay ku idmaayo in lagu dagaalamo la rabay waa soo afjaray axmed dawlo wuxuu ka dhintay axmed dawlo wuxuu ka dhintay marxuumkii la gubay baan ka hadlahayaa 2 xaas buu ka dhintay iyo 12 cunug ninka hawshan waxa weeye baarlamaanka ka codsadayna waa cabdi shira jaamac jooqle ciyaar jecel weeye ninka arrintan codsaday haddii ilaahay ku idmahayo wuxuu u codsaday xildhibaan cabdi shira jaamac jooqle in loo sameeyo aroos qaran buu codsaday anuu tacsiiqa waxa maqli jiray aas qaran baa maqli jiray aroos qaran buu yahay loo sameeyo wiilkii gabadha la dhashay wuxuu yiri tacsiiq qaran baa la dhigayaa haddii ilaahay ku idmaayo aniga waxa la yiraahdaa abwaan xarrago waxaa Soomaalidu ay yaqaanaan nabi difaace waxaan ka soo jeedaa qabiilka habar gidir saacad reehilowle xildhibaan cabdi jaamac jooqlana waa nin daarooda tol iyo qaraabo haddaan ka dhashay aniga asaga waxa weeye labadii xaas haddii run la sheegayo weeye labadii xaas oo axmed dawlo uu ka dhintay oo beesha reer Jareerweyne ka soo jeeday dumaal qaran hal kugu sameeyay aniga asaga dumaal qaran anugu waxa weeye wallaahi billaahi tallaahi kaftan maahan waa iga xaqiiq Soomaali waa kala badbaadaysaa anugu hawiyaan matalahaya naag waxa weeye dumaasha waxa u galahaya Soomaali inay kala badbaado waa la isku diray abgaal waa malabsanaya beesha reer Jareerweyne cudud bay soo bandhigtay waxa weeye mursadana waxa weeye waa hubaysay aniga iyo cabdi shira jaamac dumaal qaran hana loo sameeyo waliba asagu waa nin siyaasiya waa iga jeeb weyn yahay hallo naagta ilmaha badan la siiyo anugu waxaan ballan qaadayaa cabdi shira jaamac haddii waxa weeye uu guursado oo uu dumaalo oo ilmahaas uu kariyo axmed dawlo waa hadday daacad ka tahay wadaniyadu hadday daacad ka tahay hadduu dumaalo oo ilmaha uu kariyo waxaa ballan ku qaaday naagta kale in aan guursado oo dumaalo oo ilmaha la kariyo fadlan hala sheergareeyo muuqaalkan cabdi shira jaamac xildhibaan cabdi shira jaamac loo geeyo wallaahi billaahi tallaah laga aamusi karin arrintan waxa weeye anaa soo afjaray Soomaali waxa weeye maanta wixii ka dambeeya qabiil raali kama nihin mana rabno mana doonayno waxa weeye anu horta talkan ka dhashay iga qaadanayaan arrintan u malaymayo arrintan iga qaadanayaan laakiin wallaahi billaahi tallaah inaan bareeg u qabanayn xildhibaan cabdi shira jaamac iyo aniga asaga haddii run la sheegayo ay waxa weeye daarood iyo hawiye iyo jareer ay isguursan jireen waxa weeye maanta soo afjaraynaa ummadda sidaan dhiigeeda u badbaadin lahayn baan ka shaqaynaynaa dumaal qaran hana loo sameeyo labadii naagood oo ka tagay axmed dawlo waxa weeye naagtii weyneedna hala siiyo axmed shira jaamac waxa weeye hala siiyo cabdi shira jaamac hala siiyo midda yarna aniga waxa weeye anaa dumaalahaya dumaal qaran hana loo sameeyo hala sheer garay cabdi jaamac u geeyo muuqaalkan inaan go'aan waxaan qaato wallaahi waa go'aan geesinimo leh wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inuusan qaadan karin go'aanka aan qaatay qof kasta dhan wey go'aanka anugu aan qaatay qof kasta ma qaadan karo waxaan diyaar u ahay dumaal qaran aniga iyo cabdi shire hadduu cabdi shire guursado oo uu dumaalo islaantii axmed dawlo ninkii la gubay oo la jarjaray oo ilmahaas maqasha oo masaakiinta oo baahan waxa weeye uu daryeelo anna waxaan ballan qaadayaa inaan dumaalo midda kale oo inta kalena xalaaneeyo waa ballan asagu waxa weeye daarood ha matalo anna hawiyaan matalahayaa Soomaali has dhax gasho waa haddii laga rabo Soomaalinimo haddii laga rabo waa haddii wadaniyad waxa weeye laga rabo haddii ilaahay ku idmahayo la kala badbaadiyo ummadan dhiigooda oo isku socdo la kala badbaadiyo cabdi shira jaamac xildhibaan cabdi shira jaamac jooqle oo loo yaqaano ciyaar jecel iyo anigoo ah abwaan xarraga nabi difaace tol iyo qaraabo haddaan nahay waxa weeye hana loo sameeyo dumaal qaran ilaa waa maqalna moogta aroos qaran tacsi qaranna wiilkii gabadha la dhashay yiri waxa weeye waa dhacaysa haddii gabadha wiilka la siiyo South Africa ka soo hadlo annaguna dumaal qaran baan qaadanaa aniga cabdi shire bal waxa la ogaanayaa qofka Soomaali jecel baa la ogaanayaa fadlan hala sheer gareeyo qofka Soomaali jecel baa la ogaanayaa aniga ninka xildhibaanka anuu nin shacabana masaakiina haddii ilaahay ku idmahayo waxaana kafaala qaadi karaa labadii reer oo uu ka tagay ninka la yiraahdo axmed dawlo waa haddii cabdi shira jaamac ololihii ahaa waxa weeye ololihii ahaa aroos qaran hala sameeyo iyo nuhaadi aan ka joogi weyna maalmahan oo dhan iyo waxa weeye mashruuc waa laga dhigta mashruuc waxa weeye cid